السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان taageerayaasha Liverpool ku soo dhawaada halkani waa Liverpool Fans Somali News oo YouTube-ka rasmiga ah kooxda kubadda cagta Liverpool ee Soomaalida ay ku leeyihiin barta YouTube-ka. Kooxda Liverpool ayaa xalay ku guuleystay markii hore taariikhda horyaalka Premier League iyo sidoo kale waxay 29 sano kadib ku guuleystay horyaalka markii ugu horeysay taariikhda. Liverpool ayaa xalay xaqiijisay ku guuleysiga horyaalka kadib markii kooxda kubadda cagta Chelsea labiyo hal ay uga adkaatay kooxda kubadda cagta Man City kulan ka dhacay Stamford Bridge. Sidaasna ay Liverpool horyaalka Premier League ugu guuleystay markii hore taariikhda. kabtanka kooxda kubadda cagta Liverpool kabtan Jordan Henderson ayaa isna wuxuu noqday xalay tole kabtanka ugu horeeyay taariikhda Liverpool kamid ah ay ku guuleystay horyaalka Premier League waa taariikh cusub oo Liverpool u sameeyay kabtan Jordan Henderson. Lovren isna xalay wuxuu noqday ciyaartoygii horeeyay ka soo jeeda xulka Croatia ama Croatia ee ku guuleystay horyaalka Premier League taariikhda. sidoo kale macallin Klopp ayaa wuxuu noqday macallinkii horeeyay ka soo jeeda xulka qaranka Germany ama Jarmalka ee ku guuleystay horyaalka Premier League taariikhda. sidoo kale xidigaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Elliot ayaa lagu wadaa inuu noqdo ciyaartoyga ugu da'da taariikhda ee ku guuleystay horyaalka Premier League wuxuuna rikoodhkaas kala wareegi doonaa xidiga kooxda Man City ee Foden. Maxamed Salah ayaa sidoo kale xalay tolo noqday ciyaartoyga ugu horeeyay ka soo jeeda xulka qaranka Egypt ama Masar ee ku guuleystay koobka horyaalka Premier League. sidoo kale ciyaartoyga kooxda Liverpool isna Sadio Mane ayaa noqday ciyaartoyga ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka Premier League ee ka soo jeeda xulka qaranka Senegal. kooxda Liverpool ayaa iyana xalay tolo waxay ku guuleystay koobkeedii 48aad ee koobka waaweyn ee rasmiga waxayna 3 koob ka sareysa kooxda kubadda cagta Man United waana tiradii ugu dambeysay ee rasmiga ah ee la diiwaan geliyay kulankii xalay tole ee Liverpool ku guuleystay horyaalka Premier League. macallin Klopp ayaa isna xalay tolo wuxuu noqday macallinkii ugu horeeyay taariikhda Premier League ee 4 sano ee ugu horeysay ku guuleystay tartanka Champions League iyo waliba tartanka Premier League. ma jiro macallin kale oo Ingiriiska abi taariikhda soo maray Premier League kaasoo 4 sano gudaheed ku guuleystay 4 sano ee horeysay ku guuleystay koobka Premier League iyo waliba Champions League waana taariikh cusub oo macallin Klopp u soo kordhiyay kooxaha Premier League iyo waliba Ingiriiska. markii u dambeysay bisha June koox Ingiriis ay ku guuleystay horyaalka Ingiriiska waxay ahayd 1947 isla Liverpool ayaana ku guuleystay waqtigaas. sidoo kale Liverpool waxay noqotay kooxdii u horeysay taariikhda Premier League ku guuleystay bisha June. Liverpool sanadkan sidoo kale horyaalka Premier League waxay garaacday koox kasta oo horyaalka ka ciyaarta markii laga reebo 19 kooxood kale way ka badisay waana rikoodh cusub oo iyadoo isku dhigtay muddo ku dhow 120 sano oo ay kooxda kubadda cagta Liverpool jirtay. kabtan James Milner ayaa isna xalay tolo wuxuu ku biiray liiska ciyaartoyda ka soo jeeda xulka qaranka Ingiriiska kuwaasoo laba kooxood kala duwan ugu kala guuleystay koobka Premier League. waxaa xusid mudan in macallin James Milner oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Man City halkaas oo koox hore Premier League kala guuleystay. dhanka kale haddaan eegno Takumi Minamino waa xidiga cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool kaasoo bishii January kusoo biiray ayaa isagana wuxuu ku guuleystay horyaalka Premier League sanadkan wuxuuna isaguna dhigay rikoodh kale wuxuu hadda ku guuleystay horyaalkiisa 6aad oo xiriir ah. ninkan Minamino 5 sano ugu dambeysay horyaal buu qaadayay midkan uu ku guuleystay taas ay ka dhigantay inuu ku guuleystay midkiisa 6aad oo xiriir ah. warbixinta kale ee muhiimadda iyo xusidda mudan ayaa ah in Liverpool 2018 ay guuldaro ka soo gaadhay finaalka tartanka Champions League kooxda Real Madrid isla sanadkii ku xigay waxa ay ku guuleystay tartanka Champions League. 2019 Liverpool waxay ka gashay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League isla 2020 ama 2019 waxay Liverpool ku guuleysatay horyaalkeedii 19aad horyaalkeedii 30 sano ay sugaysay. Liverpool micnaheedu markaa waxa weeye haddii sanad aad guuldareysto ka ku-xigaad qaadaysaa haniyad jabin ha isdhiibin dadaal. Liverpool micnaheeduna waxa weeye inay kooxaha kale wax dheer tahay. Liverpool means more. daawashadaada waxay noo tahay farxad taageere waxaan si niyad ah iyo wanaag ay ku jirto kaaga codsanaya inaad kanaalka subscribe garayso like garayso asxaabta kale Liverpool taageertana aad muuqaalka u share garayso. waa Cabdixakiin Sifoodle waxaan isku arki doonaa barnaamij ku xiga dhammaantiin waad mahadsantihiin.